Fashilka sirdoonka Israa'iil iyo duqeymo ay weli ka geysanayaan Aqsa iyo Xamaas oo magaalooyin hor leh oo Yuhuud ah ku garaacaysa gantaalo. 7dii bishii Oktoobar ayay ahayd markii ururka xaquudirka Xamaas ay weerarkii la yaabka lahaa ku qaadeen koonfurta dalka Yuhuudda waa Israa'iil, iyadoo noqon doonta mid maskaxdooda abid aan ka bixin oo ay taariikhda ku qortaan. Sida la xaqiijiyay, dhimashada Yuhuudda ayaa kor u dhaafaysa 1,300 iyo dheeraad. Dowladda Israa'iil ayaa garwaaqsan dharbaaxada weyn ee ka soo gaadhay ururka Xamaas, halkaasoo qaybaha kala duwan ee hay'adaha ammaanka dalka Israa'iil ay dhexdooda ka bilaabantay is-eedayn weyn oo ay ku sheegeen dayaca dhanka ammaanka iyo guuldarrada sirdoonkooda. Halka caalamku wada qirsan yahay sirdoonka Israa'iil in laga caqli badiyay oo Xamaas ay adeegsadeen maskax ka da'weyn midda sirdoonka Israa'iil. Bishii tagtay ee Sebteembar ayaa ilaa 22 guuto oo ka mid ah ciidamada Yuhuuddu isku sii ballaariyeen gobollada kale ee Israa'iil ay horay u haysatay, halka 2 guuto oo ka mid ah ciidamadaasi Yuhuudda looga tagay oo ay ku sugnaayeen gudaha Aqsa. Haddaba maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha Oktoobar 2023, ayaa ah maalintii 6aad ee Israa'iil ay gantaalo loo meel dayin ay ku garaacayso Aqsa oo ay ku sugan yihiin shacabka muslimiinta reer Falastiin. Dhanka kale, xoogagga Falastiiniyiinta oo ay ka mid yihiin Islaamul Jihaad ayaa weli gantaalo ku garaacaya magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil oo ay ka mid tahay caasimadda Tel Aviv. Dalka Ruushka ayaa isaguna sheegay inay muhiim tahay in la sameeyo ama la dhiso dowlad madax bannaan oo ay Falastiin leedahay. Dowladda Israa'iil oo ku howlan aargoosiga dharbaaxada ka soo gaadhay ururka Xamaas ayaa soo saartay howlgelisayna diyaaradaheeda dagaal ee casriga. Dhanka kale, maanta galabnimadii 12 bisha Oktoobar ayaa diyaaradaha Israa'iil waxay galabnimadii duqeyn u geysteen garoonka diyaaradaha Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya, xilli uu ku sii wajahnaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan Xuseen Amiir inuu ka dego garoonka Dimashq ee dalkaasi Suuriya, halkaasoo diyaaradii uu saarnaa ay hawada ku kala laabatay. Welise wax war ah kamaysan soo saarin dalka Iiraan duqeyntaasi loo geystay garoonka Dimashq Suuriya. Waxaase muuqata in Israa'iil ay doonayso in dagaalkani sii ballaadho, iyagoo dhammaanba qaybihii kala duwanaa ciidamadooda militariga heegan geliyeen.